bismillah waxaan ka hadlaynaa future tense maanta waxaan soo marnay qaabka marka waqtigaas waxa dhacaya si looga hadlo marka luqad waxay ku kooban tahay luqadda waqtiyaasha iyo waa saddex waqti inta badan marka waa waqti wax hore dhacay waqti marka waxa dhacaya iyo waqti soo waxa dhici doona insha Allah marka waxaan soo marnay waqti waxa warka marka dhacayo waan akhrisanaa wuxuu yahay hadda marka maanta waxaan akhrisanaynaa future-ka marka ka hadlaysid mise wixii soo socdo mise waxaan wali dhicin ficil aan wali dhicin qaabka ugu hadlaya ingiriiska waxaa kaloo muhiim ah waan baranay luqadda hadalkeeda dhan wuxuu ku kooban yahay waa mar aad iska hadlaysid mar aad dad la hadlaysid iyo mar aad dad ka hadlaysid weye marka waxyaalo badan baa hadda noo luqadda nigu baxay aan u malaya practice ma ubaahan practice future-ka markaa qabatid oo tii ficilka hadda dhacaya aad qabatid waxaa noo soo haraya ficillo dhacayn ayaa noo soo haraya taas aa ugu yar adag oo badan marka labadan aan ku dadaalno qaabkan ugu hadlayan oo isticmaali lahayn waayo marka hal mar aan akriyo wax kama dambeys ma laha practice busay u baahan tahay future tense waxaa tan ayaa ugu fudud future-ka marka ka hadlaytid waxaad isticmaalaa labadan eray oo ah shall iyo will inta badan labadan eray ayaa isticmaalaa shall iyo will inkastoo shall hadda ay khad ka baxday inta badan lama isticmaalo marka tan ayaa noo soo horeysa isticmaalkeeda shallkan waxaa loo isticmaali jiray I iyo will ayaa loo isticmaali jiray waa hore ilaa hadda waa iska isticmaali kartaa laakiin isticmaalkeeda ugu yaraaday marka I shall baa la dhihi jiray iyo we shall wixii kasoo haray oo he iyo she iyo it iyo they kuwan ay qaadan jireen willkan ay qaadan jireen laakiin hadda tan ma isticmaalayno willkan ayaan kulli u isticmaalaynaa macal I iyo will kulli intaan u isticmaalaynaa marka example haddaan tuso waxay noqonaysaa I will come. I will come. I will come. aniga waan imaanaya wiilkan waxaan ku saafacay inuu dhici doono waqti soo socda ama wiil la gaarin beri ha noqdo beri damana soo socda I will come marka waan baran doonaa xaalaha kale laakiin tartiib I will come waad hadashay marka xaalaha bisnaadid I will come aniga imaan doono marka waqtigan waa waqti soo socda future-ka I will come we will come anaga ayaa imanayna we will come anaga ayaa imanayna we will come anaga ayaa imanayna she will go ayada way tegi doontaa she will go ayada way tegi doontaa she will go ayada way tegi doontaa they will sleep ayaga way seexan doonaan they will sleep marka saacan maxay shayga ka hadlaysa soo hormaray ficilka waqtigiisa ayaa ku xiga ficilkii la suubinaya ayaa ku xiga marka ficilo waan akhrisan waan soo qaadanay isku dayna inta u bedesho ficilo aad ku buuxsid aad isweydiiso macnaheeda مثلا waxaad leedahay waxaad soo qaadanaysaa he oo kale waxaad soo qaadanaysaa he wiil ayaad ku dejinaysaa waxaad soo qaadanaysaa ficil aad barato مثلا waxaan dhihi cunid maxaa dhahaa yes it ayaa dhahaa soo xasuustay waxaad leedahay ku dhawaaq arig he will eat macnaheeda isweydii he will eat maxaa weye he waa asaga waa naqana willna waa waqti future-ka ay ka hadlaysaa itna waa cuni so he will eat asaga wuu cuni doonaa
he will eat luqad saas ayay u fududahay marka waxay u baahan tahay practice iyo ku hadal marka inaad qaadatid qalin iyo buug isku day inaad buuxiso oo ayagoo badan oo noocan inaad kasoo saartid tolma af Soomaali isku yidhi ayadoo way socon doontaa ayadoo waxaan ingiriis u dhaar she will baa meesha gelisa she will walk saas oo kale marka badi isku day inaad ku hadashid oo practice gelisid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.